السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan idinkala soo hadlayna waa cashirkeenii grammarka ah. waa channelkeenii English koorsaha nagu baxay. caawa cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay waxaan soo qaadanay tiinidkii saddexaad oo ahaa present perfect. tennis oo ah goor joogto sugan, goor joogto ah oo dhammaatay. hadda waxaan qaadanaynaa cashar la yiraahdo waa kii tenniska afraad. waxaa la yiraahdaa present perfect continuous tense. present perfect continuous tense oo ah goor joogta sugan oo socota. goor joogta sugan ee socota. aan iswada dhegeysano, aan ka faa'iidaysano casharada. marka hore waxaa imaanaya su-aal ah define present perfect continuous tense. qeex waxa uu yahay goorta joogtada sugan ee socota. The present perfect continuous goor joogta sugan ee socota is used for waxaa loo isticmaalaa an action fal which started kaasoo soo bilowday in the past mar hore and still welina continuing welina waa sii socda. waa shaqo hor usoo dhammaatay, waa shaqo hor usoo bilaabatay oo ilaa hadda socota, weli maysan dhammaan, weli waa socotaa. marka the present perfect continuous goorta joogtada sugan ee socota is used for waxaa loo isticmaalaa ama loo adeegsadaa an action fal which started kaasoo soo bilowday in the past mar hore and still welina continuing weli waa sii socda, weli ma uusan dhammaan. formation qaabka loo soo saaro ama loo sameeyo waa subject sameeyaha plus oo loo geeya have comma has plus been plus oo lagu sii daro dana verbka oo lagu sii diray plus ing-da oo lagu sii daro objectiga dhibanaha. waxaa ku soo baxaa tennis correct oo ah present perfect continuous tense. waa ka example aan qaadano asoo ah statement. wuxuu yidhi I have been learning waxaan soo baranayay Englishka for 2 years 2 sannadood. haddii wuxuu yidhi waxaan soo baranayay Englishka 2 sannadood, weli ma uusan dhimin, waa sii socdaa, weli ma joojin, weli waa bartooya. I have been learning English waxaan soo baranayay Englishka for 2 years 2 sano. wuxuu yidhi ardaygana he has been writing waxaan qorayay this book buuggan qorayay since 10 iyo 4 hours ilaa 4 saac ayaan buuggan qorayay, weli waa sii qoraya. marka goortan oo present perfect continuous-ka ah waxaa aad loogu adeegsadaa waa for iyo since. forta haddaan ka hadalno waxay aad u sheegtaa muddooyin kore dheer, for 2 years, for 5 years, for 7 years. tenniska waxaa aad u fafaaleysaa waa labada erey for iyo since. for waxaa loo adeegsadaa wax badan, forta waa wax badan ayay noo caddeysaa ama goor waqti dheer, for 10 years, for 15 years, for 20 years, for hakas. sinistana waxay sheegtaa iyada wax sugan. I have been working here markaa dhegeyst I have been working here. wuxuu yidhi waxaan ka shaqeynaya halkan since 1926. markaa dhahdid I have been working here waxaan u shaqeynaya halkanaan ka shaqeynaya since tan iyo 1982. ilaa hadda waa sii shaqeynaysaa, marka ma joogsan. marka since ayaa aad waxay u sheegtaa wax cad oo sugan. negative marka laga dhigo waxay noqonaya I have not been learning English ani ma baranin Englishka for 2 years 2 sannadood ma baranin Englishka. ilaa negative waa. he has not been writing ma uusan qoraynin this book buuggan ma uusan qoraynin since tan iyo 4 hours 4 saacadood
ما uusan qorin buuggan ma uusan qorin ilaa 4 saacadood ayaa question marka laga dhigo question form have la soo hormari have I been learning English for 2 years have I been learning miyaan baranay Englishka for 2 years 2 sanadood miyaan baranay Englishka question marka u dambayso marka ilaan waa su'aal has he been writing ma qoray isaga this buuggan ma qoray since 10 iyo 4 hours ilaa 4 saacadood buuggan miyuu qoray buuggan ma qoray ilaa 4 saac aye negative with question form asagoo ah diidmo oo su'aal wadata negative ama waxaad dhigi kartaa question with negative form ama horumar negative-ka negative with question form diidmo su'aaleed waa haven't I been learning miyaanan baranin Englishka for 2 years 2 sanadood ma baranin miyaanan baranin Englishka 2 sanadood miyaanan baranin haven't I been learning miyaanan baraninin Englishka for 2 years 2 sanadood miyaanan baranin hasn't he been writing miyuusan qoraynin this buuggan ma qoraynin miya since 10 iyo 4 hours ilaa 4 saacadood buuggan ma qoraynin miya casharka halkaasuu ku dhammaaday koorsayn Ingiriiska casharka halkaasuu noogu dhammaaday oo koorsaha Ingiriiska ahaa waa sii wadaynaa insha allah tenniska waynu dhammaynaynaa waxaan ku xijinaynaa haddana qiimaha kale active voice passive voice waxaa ku xigi doona weliba aan sii jeclahay inaan soo dhex dhigo new words vocabularyal cajaa'ib aad ku cusgeli doon insha allah marka waxaan leenahay asxaabteena ku nool gudaha iyo dibaddaba waxaan leenahay subscribe noo saara subscribe-ka anaga ilowna noo saara sidoo kale like-tana hal ilowna like-ta ilan waa dhiirigelinteena asxaabteena way mahadsan yihiin dhammaantiin waan idin mahadinayaa aanan ka faa'iidaysano markaan joogsaman insha allah waa sii wadaynaa waanu ka faa'iidaysan doonaa casharada mid baynu soo qaadan doonaa insha allah ilan ingiriis waxa muhiimsan waa garaamerada ingiriiska garaamerka ayaa dhaxalgal ah isa ayaa dhaxalgal ah tan kale asxaabteena waxaan u sheegaynaa sidoo kale dadkii noo saaray subscribe-ka aad u mahadsan yihiin like-tada noo geliyey oo like-ta noo saaray aad u mahadsan yihiin dhammaantooda dadka cusub waxaan leenahay subscribe-ka naga ilowina like-tana noo saara follow noo dhaha sidoo kale follow noo dhaha bogga aan ku leenahay Facebook sidoo kale